Waxaan doonayaa inaan videogan idinkula wadaago 6 shay oo qof kasta ina kamid uu doonayo inuu isbedel noloshiisa ku sameeyo ay muhiim u tahay inuu naftiisa marka hore ka dhaadhacsiiyo. Qodobada midka ugu horeeya ayaa waxa uu yahay xusuusnow mararka qaar waxaad noloshaada bedeli weydaa aday ku bedelaan marka dambe. Midda labaad waxay tahay ka tag qofkii aad ahaan jirtay, jeclaawna qofkaad maanta tahay si aad hore u socod u noqotid oo aad u gaartid qofka mustaqbalka noqon lahayd ama rajada weyn aad ka qabtid. Qodobka saddexaad, qofka bini'aadamka waxyaabaha noloshiisa ee bedela ee waaweyn waxaa ka mid ah 2 shay. Waa kan koowaad, qofku aad u jecel yahay inuu noloshiisa ku soo biiray ama qofku aad u jecel yahay inuu noloshiisa ka faaruqay oo waayay. Qodobka afaraad, tallaabada ugu horeysa ee isbedelka noloshaadu waa inaad qarsan tahay inaad marka hore noloshaada dayacday. Markaad taa qirtid ayaad isbedeli kartaa adna. Qodobka shanaad, noloshaada waxba kama bedeli kartid ilaa aad bedeshid dhaqan maalmeedkaaga. Markaad bedeshid waxyaabaha maalin walba aad samaysid ayaa noloshaada isbedel ku dhici karaa. Qodobka 6aad ee ugu dambeeya ayaa waxa uu yahay qofka kaliya khibrad u leh inuu qiimeeyo qofnimadaadu waa adiga. taa cidnaha ka dhigaysan bini'aadamka inay kugu qiimeeyaan oo waxay kugu qiimeeyaan naftaada ay ka dhaadhacdo marnaha u ogolaan. waxaadna ogaataa waxaad tahay qofka kaliya ee naftiisa si fiican u yaqaana marka laga soo tago Allah subxaanahu wa ta'aala. walaalayaal intaasaan jeclaystay maanta. haddii ay tahay markii kugu horeysay kanaalkeena soo booqatid, fadlan subscribe saar, balaalkana furo si aad u noqotid qofka ugu horeeya daawada muuqaalada aynu soo gelino. mahadsanid.